maamul gobolka banaadir xabad iyo rasaas ma ka sugeynaba waa inuu u diyaarsan ma haynaba ninka madaala aad tiraadaan rasaas iyo qoore iyo ciidan axmed ma yaqaanba wadaad iska xiro waayo xasan sheekh soo qabtay oo laba mar uu noo keeno aha حتى ما أمر كله ولا سو شقيا حس شقيا المجران مركو أنا حس شقيا أنا بري هذا أنا أصيع أنا كان مركو أضيع كسر مني إنه حبط عيد نبض أمني أصيع كجهز أبتوه منه وأنا كجهز أبتوه منه ما كو هذا أو بقى بوليس كا وحبط عيد نظام كله ولا سو حكاية قال ولا بنيجي نقول كبنات الشغل دي تبيها بوليس كي يروح جاي كيس رجع أصلا أو باقي نعمة لا يرد بالشعب دارنا مركو أنا أيندر إن عاصمة دي دولة دي اللي قلت لنا ماشي معك بس حبط marka waxaan leeyahay hadii xabadii waxa ay u baahan furmaha ay dagaalka hal tago xabadu xagga hal geeyo shacabka cashuur bay bixiyaan waxa weeye in maaragtay dhiigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda iyo la ilaaliyo iyo sumcadda dowladnimada wax bay isku jiraan waxaa dhibaato weyn ay ka taagan tahay isla saasaynta ciidamada dowladda Soomaaliya ku dhex marta caasimadda Soomaaliya ee gudaha magaalada Muqdisho taasoo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan shacabka Soomaaliyeed kuwaas markaas u safraya ama u soo socda goobahooda shaqada ama guryahooda maalmihii la soo dhaafay isla saasayn ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa waxaa dhibaatooyin ay ka soo gaareen dad shacab ah kuwaas markaas ku sugnaa goobta ay ka dhacaysay isla saasaynta maadaama Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya dadyo kala duwan oo ka imaanaya caalamkana ay markaas yimaadaan adaba qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa mikrofoonka telefishinka 5 Somali TV la xaqaaday waxaa markaas ay kaga falaqiyeen siyaabo kala duwan iyagoo markaa baaq u diray dowladda Soomaaliya sidoo kale maamulka gobolka Banaadir in arrintan si hoose loo fiiriyo kulay ana waxaan arkaa arkiyadan ka dhigto waa wax xun oo ayaan daraa maartay in caasimadda dhexdeeda la isku maartay la isku raasayo shacabkan waxa ka soo gaari kara dhibaato aad maalmo baad dad ku dhintaa oo ku dhaawacma leeyahay qof iyo xabad isaga dhacday marka kulay ana waxaan arkaa wax fiican oo wax xun weey marka waan ayaan daro in caasimadii dowladda looga talinayay meesha maartay isku xabaday marka waxaan leeyahay hadii xabadii waxa ay u baahan furmaha ay dagaalka hal tago xabadu xagga hal geeyo dowladda kale maxaa leedahay u baaqay marka ma madaxdan waxa ka uga baaqaya in maartay arrinta ay wax ka qabtaan maalmo badhi baa dhaco waxyaalo badan baa dhaca marka waxa dowladda inay ka hortagto aysan waxaan mar dambe dhicin intaas ku talinaya madaxda ciidamada wiilal yar oo bisto waqtiga kuwa milashada baad isku ku dhacay dowladdu wax ka qaban lahayd ama maamulku wax ka qaban lahaa waa biliiska ayagii caqabada haysata waxa waaye inay meesha wax ka dhacaan inta imaadaan oo ay xiraan ma gartaan meel arrintaas ka dhacaysa nimankii guryahoodii aadayaan oo way raadinayaan oo meesha haddana raadinta xabada kale ka dhacaysa maya aniga waxaan qabaa arrintaas waxa in loo xilsaaray biliiska Soomaaliyeed inay arrintaas ka hortagaan nimankan qoryaha la yaacaya wiilasha bistooladaha la yaacaya in la xadado in lagala hadlo in wacyigelin marka hore loo sameeyo inta ay dhikaarka iyo hubka aan la isku siinin xarunta ay ka soo baxay wacyigelin looga sameeyo shacabkan inay yihiin shacabkooda lacagta ay qaadaan lacagta shacabka laga qaado inay tahay marka hore tababarka qofka markuu soo qaato wacyigelin loo soo dhameeyo in dowladda hubka u soo dhiibto oo aqoonsiga loo soo dhiibo intaasaan codsanaynaa oo ka codsanaynaa booliska Soomaaliyeed kuwa gobolka Banaadir waliba ninka macalmahdi nin oo degan oo macquul ah ku ogaa ma aqaan hadda tan wax iska bedela markii taliyaha booliska laga dhigay nidaamka meel ka mara ma aqaan in wax bartay oo dhalinyaro ah oo shaqada inuu ku fiican yahay baleelino aha gobolka Banaadir inuu booliskiisu xukumi waayo oo nidaam u sameyn waayo waxa waaye waa ayaan daro waxa waa asaga haysato marka sidaa darteed arrinkaas uu soo kordhay beentiin maahan in wax laga qabtana waa loo baahan yahay waana cambaareynayna maalmo siyaasadeed iyo dadka shacabka ay ku dhimanayaan oo waliba ciidanka ay isku dilayaan wax aad u falxun waa cambaareynayna waa dhaleeceynayna booliskana ku eedeynayna ayagaana kula xisaabtamayna in ma garanaysa waxaas wax ka qaban waayeen waxaan codsanaynaa in wax laga qabto maanta kadib maartay bahda saxaafadda anigaas isa baqal annaga ay soo dhigay xabada dusheena maamulka gobolka Banaadir qashinka naga qaado xawar rasaas u sanaga dhigay maamulka gobolka Banaadir xabad iyo rasaas ma ka sugeynaba waa inuu u diyaarsan ma haynaba ninka madaala aad tiraadaan rasaas iyo qoore iyo ciidan axmed ma yaqaanba wadaad iska xiro waayo xasan sheekh soo qabtay oo laba mar uu noo keeno aha حتى ما أمر كله ولا سو شقيا حس شقيا المجران مركو أنا حس شقيا أنا بري هذا أنا أصيع أنا كان مركو أضيع كسر مني إنه حبط عيدا نبض أمني أصيع كجهز أبتوه منه وأنا كجهز أبتوه منه أنا ما كور هذا أو بقى بوليس كا وحبط عيدا نظام كله ولا سو حكي قال ولا بنيجي نقول بنادي الشغل دي تبيها بوليس كي يروح جاي كيس رجع أصلا أو باقي نعمة لا يرد بالشعب دارنا يعني أنا قفتان أنا كان درب استياشة وسكه بس ويا لا عيال يروح يرمي الدار ضرورة الله تقال نعاو halka hadda xajiis loo go'ay gisoo
ساديا شيت كسلام يستاهل بنادم سوا حط حلو وحبيب على لوجا فقلت الماما عبد الدين قاعد داوود دربي بنادم إن عسى بيها ركب الله إلا جيس يسوق حشيش على لوجا ما كان قبل كلام وأنا كنت باغي لك رد على ما يعني حافظها رقم على لوجا إلا لا من ضبطي سجن دوست السجن درس شيت كان أسوأ المحتوى وتلقى قبر على لوجا هاي قال قبر على لوجا هاي حشيش وحاول كموسى أمن الدهن أنا واحد كنا دراجة هذا اللي قلت من أمن ما مسكنا حشيشك يا قمرية قفك مرة واحد دلالي مرة واحد سمية مركب بركان مقوقة هرت مركب واحد ترى تقف على غير الله سيء ساكين قاس عقوق سيتس كعروسه ليش يساس كلف الدنيا ورا لها لكن ما كان بوليسكا إذا مسؤول ده أنا كهر تجار عبدها أنا رصاص كاني واحد دعاي أيجا مسؤولك أيجا عدول أقرب على جوي جيران ودبعته أنا قلت لها إن أردت ولا نقطة دولة إحكام قبضته جلها برلمان هي جلها حكومة تاسو دبعته كنت شعبك سويت شعبك عشور ببحيان وحوى إن معرفة لي جود هي مالكود هي شرفته هي الإلارية وسمعة الدولة من واحد مش كده مركا وحنا كسر جبينا يا مدحوينها يا رئيس الوزراء يجمعها برلمانك دمان حكومة سويتها هي وحلا هرتا سواء وحلا أو سوي وحلا وخاصة المدحوينها يا رئيس الوزراء هي لها أمنية أنت أصلا ما رتي إنك بحياة inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa dhibanayaal u ah qaar ka mid ah askarta ciidamada dowladda Soomaaliyeed kuwaas oo dhibaatooyin ay ka soo gaareen xilliyada markaasi ay ku guda jiraan hawl maalmeedkooda maxamed Dheer Maxamed Faaf Soomaali TV Muqdisho